bandhiga cilmi baarista qormada saxda ah iyo toosinta adeegsiga naxwaha ee afka Soomaaliga. haddaynu ka bilowno erey, waxaynu leeyahay dhismaha ereyada iyo dhegga raaca. afka marka aynu sheegayno, afku ereyuu ka kooban yahay si kastoo sifo u yeeshaanba. afka Soomaaligu waxa uu ka kooban yahay ereyo jira. dadka qaarkii ereyada qaar waxay ku sheegaan qurub ama waxyaabo kale oo raaca, laakiin afna iskama sameeyo ereyo aan macno lahayn. marka erey markaynu nahno waa ereyada afka Soomaaliga ku jira. waxaa intaa raaca kuwa aynu odhan karno waa dheg ama waxay ku dhagaan ereyada. marka ereyada haddaynu wax ka taabano waa magaca, falka, magacuyaalka, kuwa sidaasa buur, ayax, ogcun, iyaguna kaas, cagaaran, kiisa, waxyaabahaas oo dhan. haddaynu dhegga isna sheegno, waxa u kala baxaa laba qaybood oo aynu odhan karno waa bilayaasha iyo kaabka. bilayaashu waxay wax ku kordhiyaan shayga laga hadlayo ama sifadiisa ayay kordhiyaan. kaabkuse wuxuu ka dhigaa erey kale oo ama si kale u tilmaaman ama macno kale sheegaya. markaa way kala duwan yihiin oo bilayaashu iyagu waxay ku kordhiyaan sifo dheeraada shayga laga hadlayo, laakiin kaabka kaynu nidhaahnaa sifo ka duwan ayuu u sameeyaa ama shaygii shay ka duwan ayuu ka dhigaa. haddaynu ku horeyno magac, waxa weeyaan intan oo dhammi waa magacyo, dhar, bilcan, madax, tuulo, waxaasoo dhan. haddaynu nidhaah falka waa og, cun, jecel, ah, si, leh, ogol, qor, waa iyaduna kuwaasoo kale. magacuyaalka waxa weeyaan kaas ama kaa cagaaran markaynu leenahay, kaas ayaa magacuyaala. magacuyaalku sidiisaba magaca ayuu bedelaa, waxba kale ma raaco, kelidii buu istaagaa. markaa kaas cagaaran, kiisa, ka dambe, ta dhukan, ta oodan, kan, kuwa dhuudhuuban ama kuwa dhuuban, keeda, waxaasoo dhammi waa magacuyaal oo magacuyaalku sidiisa keligii buu istaaga. haddaynu dhegga u tagno, waxa weeyaan bilayaasha kuwa la yidhaahdo guri, gaas. gaas ayaa ah dhegga raacaya, kama go-aan iyagu, laakiin waxay la socdaan shayga ay raacayaan. looxiisa, buulka, laxda, beerta, daahan, usha, madaxeeda, intaasoo dhammi waa dhegga raacaya ereyga oo aan iyagu ka go-ayn. kaabka iyaguna way raacaan, laakiin waa kaab ereyga shay kale ka dhiga. tuulo, tuulooyin, daah, daahyo, cun, cunaya, xor, xornimo, galab, galbeed ama galbeed, dhuub, dhuuban, dhirbaax ama dhirbaaxo, waxaasoo dhammi waa iyaguna dhegga aynu kaabka odhan karno oo ereygay sii bedelaan, laakiin iyagu macno ma sameeyaan ama sifo ma ku sii daraan. waxaynu halkan aragnaa intani inay yihiin ereyadii, kuwana dheggii raacayay. marka afka Soomaaliga marka ugu horeysa erey iyo dheg ayuu u kala baxaa. haddaba haddaynu ereyadii israacraacaya waxaynu u jeednaa markaynu weer samaynayno. marka waxaa jira had iyo jeer afkeenu qofku markuu odhanayo sax buu u yidhaahdaa, laakiin inta badan ma garto waxa uu ereyada kolba qaar u horreysiiyo. way jiraan afafku hab u gaaroo keli ah oo aan la bedbedeli karin bay ereyadu u kala horeeyaan marka weer la samaynayo. afka Soomaaligase way isbedbedelaan. waxaananu halkan kusoo
bandhigaynaa sababtan keenaysa in weedha afka soomaaligu isbedbedesho oo kolba si loo dhaho ama loo qoro ama loo dhigo. ereyada afka soomaaligii marka la taxayo ama yacni siday u kala horeynayaan ereyadu ama qaybiba sifada ay leeyihiin, waxaa jira 3 qaybood oo iyagu aan kala hadhin oo qaarka bidix noqda ereyga ama qayb quri ka horeyso iyagu se isdabagala hadday afka soo galaan ereyadiisa. qaybtan iyo qaybtan iyo qaybtan ereyo isaga guura ayaa gala. qaybtan oo qaarka midiga dhawaaqyada ama ereyada ku jira ee godadkan qaarba ay sifa ahaan u galaan, ma guurguuraan ama ma kala horeeyaan sidan ay u jiraan si aan ahayn. marka qaarka bidix iyo qaarka midig iyagu isma bedelaan, laakiin ereyada had iyo jeer afkeena aynu ku maqalla inay isbedelaan ama kolba si loo dhigaa waxay geli karaan 3dan god. haddaynu bal hadda weedh samayno afka soomaaliga, waxaynu odhan karnaa hasha waxaa si xun u dhaawacay shalay libaaxii. si xun shalay waxaa hasha u dhaawacay libaaxii. shalay waxaa si xun u dhaawacay hasha libaaxii. marka lalenayo shalay waxaa si xun u dhaawacay hasha libaaxii, waa isla hadalkii laakiin kolba qaar baa horta maray marna dhexda. waxaad arkaysaa kuwa halkan maraya inay halkana geli karaan halkana geli karaan. taasi waa tii ahayd qaarka hore ee aynu sheegnay ama qaarka bidix iyo qaarkan midig inaanay ereyadoodu isbedbedelin. marka waad aragtaa iyagu isma bedelayaan ama ma guurayaan, laakiin ereyada guuraya waa godkan iyo godkan iyo godkan ereyada ku jira. haddaynu kuwa hoose eegno, libaaxii ayaa hasha si xun u dhaawacay shalay. shalay libaaxii ayaa si xun u dhaawacay hasha. libaaxii ayaa hasha shalay u dhaawacay si xun. waa isla weedh qura oo isku ujeeda ah dhammaantood waxaan oo dhan ama sidan aynu u dhignay. siyaabo kalena waa loo kala sii gedgediin karaa intan ka badan. hadda waxaynu tusaynaa in ay ereyadu isbedeli karaan ama guuri karaan. hadalka ereyada haddaba waxa marka aad tidhaahdo shaygii falka geysanayay had iyo jeer ereyga u dambeeyu noqonaya. ay haddaad isticmaasho wuxuu noqonayaa ka ugu xiga isagaa ereyga. marka labadaa sharci bay leeyihiin ee kani uu noqonayo ka ugu dambeeya, ayna uu noqonayo ka isaga ugu xiga. waa marka aynu isticmaalno yeelaha ama qofka yeelaya uu yahay aynu isticmaalno. yeelayaal kalaa jira oo uu ama ay ama aanu ama aynu ah oo aan magacuyaal ahayn. magacuyaal maaha yeeluhu, isagu waa yeele, laakiin magacuyaalku halkan uu geli karaa halkan uu geli karaa halkan uu geli karaa. marka waa waxyaaba aynu isku qaladnay aan ahayn isku mid. marka ereygu haddii uu halkan galo oo halkan magaca geli kari waayo wuu ka duwanaanayaa sawirkiisu ama sifadiisu. marka kuwan waa yeelayaal, waa qofkii wax qabanayay oo sidiisa ugu jira hadalka. marka kan iyo falka midna weedha kama hadlo marka aynu weedh sheegayn. way jiraan hadallada gaagaaban oo guriga cas guriga madow way ka hadhi karaan, laakiin weedh sidan u socota way ku jiraan goor walba. haddaynu haddaba nidhaa godadka maguuraanka. godadka maguuraanku waa maxay?
waa kuwan iyo kuwan. haddaynu dib ugu noqono godadka maguuraanku waa kuwan, waa saddexdii god ee aynu sheegnay iyo kuwii midigta marayay ee aynu iyagana nidhi waa godadka maguuraanka. marka labadan qaybood waxaa la yidhaha godadka maguuraanka. godadka maguuraanku iyagu ereyo sidooda ah ayaa gala ama qaybaha ay ka tirsan yihiin afka. saddexdan god ee u dhaxeeya ama kuwii haddeer weedha markaynu samaynayna ay baxbaxaysay waxa ay geli karaan saddexdan god, waana godadka aynu dhahno lacsiima guurka, yani si ay wax uga bedelaan sawirka ama yani sawirka usii muujiyaan ama sii qaabeeyaan ayay u guurguuraan. ereyada haddaba gala godadkan lacsiima guurka oo weedha kolba dhinac ka galaa waxay yidhaahdeen kuwa aynuna magaca, kuwa tusmada, tusma hilaadshaha, magacuyaalka, aminyeelka iyo xidhiidhiyaha. haddaynu sii eegno magaca waa kuwa matalan magac guud, magac gaar, waxaasoo dhan cali, bir, geed, qurux, beer, waxay lamida. tusmada waxa weeyaan dheer, cas, badan, dhan, wanaagsan, waxaasoo dhan. tusma hilaadshi waa wax falka si gaara uga warrama oo ah matalan aad, xoog, si xun, si wacan, markaa falku isna ka warramaa, kuwa guurguuru ka mid yahay. magacuyaalka oo ah aniga, adiga, kiisa, kaas, kuwan, kuweenna, iyaga. magacuyaalka oo ah qaybo sii kala jaajaada ama tilmaame ama lahaansho ama waxaasoo dhan. aminyeelka oo ah xilliyada, shalay, berri, haddeer, imika, kal hore, waxaasoo dhan oo aminyeel aynu dhah. xidhiidhiyaha oo ah ama, na, ba iyo se, ha yeeshee, oo, ee, waa ereyada isku xidha hadalka ama ereyada. saddexdan waa lixdii aynu sheegnay ee lacsiima guurka oo godadkay doonaan gala kolba, waa isla iyagii saddexdii kale, waa lixdoodii oo ah kuwa godadka saddexdaa gala. godadka maguuraanka ah waa godadka qaybtii bidixda ahayd ee aan kala horeyn jirin iyo qaybta midigta oo aan kala horeyn, yani sidan ay hadda u yaalaan si ka duwan uma kala hormaraan. way dhici kartaa in qaarkood ka maqnaadaan, laakiin haddii ay ku jiraanba sidan ayay u kala horeeyaan. markaa kuwan wallaaciyaha waa kuwa ereyga sheega halka uu ku socdo ama dulucdiisa. waxaa ka mid ah waxa, ay, wa, ma, miye, in, haddii, marka, waxaasoo dhammi. yeelaha waa aa, aan, aad, uu, ay, aanu, aydin, ay iyo diidmakaba oo ah weedha marka ay diidma tahay uu raaco oo ma ayan qaadan oo kale. qaybta midigta kuwa xiga waxa weeyaan yeeladure. yeeladure waxa weeye qofkii waxaan samaynayay ayuu hadalka ku soo celiyaa. waa uu qaaday markaan idhaa waa la qaaday, marka isagiibuu ku soo celinayaa. libaaxa ayaa qaaday ama libaaxa ayaa cunay, libaaxa ayaa la cunay. marka waxaad aragtaa la'da marka la raaciyo inay falka ku soo celinayso qofkii samaynayay. marka waa yeeladure. yeelme waa qofka falku ku socdo, waa i, ku, na, ina, idin oo kuwaasi markaa intanubaa qaadataa object ahaan markay noqdaan ama yeelmaha. meeleeye waxa weeyaan
cidda falka geysanaysa ama ay ku dhacayso ayuu falka xaggiisa u duwaa markaa u ku ka kaga la waa intaasi waa meeleeye. waxaa jira yeelmahadood waa qof falku ku socdo oo laakiin aanu si toosa ugu socon, wuuna qaaday ama wuuna diray, wuu noo kiin diray, idinkuu noo kiinsii diray bay noqonaysaa. markaa kiin, kaayo, kiis, geed, keen, waxaasoo dhami waa falku markuu kusii dhacayo qofkan uu marayo mooye qof kaluu ku socdo. falmeeleeye wuu ka duwan yahay meeleeye caadiga ah. falmeeleeye wuxuu sameeyaa falka ayuu jiheeya ama direction siiya oo meel ku hagaajiya. markaa wuu qaaday, haddaan idhaahdo waxbuu qaaday, wuu sii qaaday, marka waxaan siiyey jihadii wuu u socday, ama wuu soo qaaday, ama wuu wada qaaday, wuu hoos qaaday, wuu kor qaaday, wuu ag qaaday, wuu barbar qaaday. waxaasoo dhami waxay siinayaan jihada uu ku socdo falku. falgargaarsi isagu falkuu xoogeeya, wuu dadnimo hadlay, wuu waali dhaqaaqay, wuu moogani hadlay, wuu raganimo ciyaaray, yacnii waxay ka hadashaa falka ayay xoojinaysa. falka ayaa haddaba isna laba qaybooda, markaa fal tusmo iyo fal sandulle. fal tusmo waa falalka uu qofka ku sifaysan laakiin aanu ahayn inuu qofku toosu samaynayo. waxa weeyaan falka aan qof lagu amri karin laakiin qofku uu sameeyo. iminka og haddaynu dhaa amar ma noqon karo haddii aan wax la raacin oo la odhan ogow. marka isirka markuu yahay ama falku ka bilaabmayo markuu yahay, qofka laguma amri karo laakiin qofku inuu samaynayo ayaa lagu sifayn karaa. markaa nin og, nin jecel, nin ah, nin leh, nin cas, nin ogol, nin yar. markaa ogow, ogolow, ahow marka lasii bedelo. falsandulluhu isagu wuxuu ku socdaa si toosa qofka oo lagu amraa. markaa dhal, duul, dil, soco, buur, dhimo, waxaasoo dhami waa falsandulle. markaa labada fal waxay ku kala duwan yihiin. midna waa lagugu amri karaa, midna waa lagugu sifayn karaa oo qof baa lagu sifaynaya. qaybtan waa qaybtii aynu waa qaybta bidixda ee hadalka oo iyagu ma kala hormaraan, sidana isu daba socdaan. waxa aa ama waxa aan ama waxa aad, ayaa, ayaan, waaw ama ma uu ama miyay ama in aanu ama in aynu, waa saddexdaas sidaasay isu daba socdaan. kuwan waa qaybta midigta xigta, afartii ugu horeysay ee qaybta midigta. markaa la, i, ku, na waa iyagu yeelmihii. meelaye oo ah u, ku, ka, kaga, la, iyo yeelmahadood oo ah qofka labaad uu falku ku socon karo. wuu ii kaa diray, wuu kuu kay diray, wuu noo kiin diray, wuu ii kee diray, wuu ii koo diray, wuu idiin kaayo diray. markaa kuwani waa kuwa labaad ee falku uu marka dambe si aan toos ahayn usii qaadi karo. afartani waa kuwii aynu midigta xigayaan. markaa waa falmeeleeye, sii, soo, wada, kala iyo hoos iyo kor iyo waxaasoo dhan. falgargaarsi iyagu falka ayay xoogeeyaan oo diidmo, uu dadnimo hadlay, uu waali dhaqaaqay, xoogani, ragannimo, waxyaabahaasoo dhan bay noqotaa. falkana way caawiyaan. fal tusmo waa kuwii aynu nuli sawir ahaan bay u muuqdaan ama tilmaan ahaan amba sifa ahaan ayay qofka u galaan, laakiin laguma amro oo waa nin og, nin jecel, nin ah, nin leh. kuwanse waa falsandulle, waa la ysku amraa. markaa dhal, duul, dil, soco, buur, waxaasoo dhami waa falsandulle.
labadan qaybood waa qaybtii bidixda ahayd iyo qaybta midigta ah oo waa kuwa ah godadka maguuraanka. marka ereyadani qolo waliba sifay godkooda ku gashaa, mana ka guuraan, mana kala hormaraan sida isu daba socdaan si aan ahayn markay weergelayaan. dhismaha weedha dulucda. weedha dulucdeeda waxaynu u jeednaa cidda loo baahan yahay weedhu ay ku socoto. shalay ayuu iiga kaa soo tolnimo qaaday lacagtii. aydani markaynu adeegsano waxay ka hadlaysaa cidda hadalku ku socdo ama sida hadalku u socdo ama cidda ugu horeysa la iftiimanayo. waxaynu ay haddaynu isticmaalno ka horeeya ayaa dulucda hadalku ku socda. markaa shalay ayuu iiga kaa soo tolnimo qaaday lacagtii. lacagtii ayuu iiga kaa soo tolnimo qaaday shalay. waad aragtaa markaynu lacagtii horeysiino aydu inay ku noqonayso lacagtii oo ay tahay ta muhiimadda aynu sinino ama ta aynu u jeedno inaynu sheekadeenna ku socoto. waxaynu iyadu halka u dambaysa ayuu cidda ay ku socotaa u galaa. shalay waxa uu iiga kaa soo tolnimo qaaday lacagtii. haddaad aragto waxa uu geeyaa cidda uu dulucdu ku socoto halka u dambaysa. lacagtii wuxuu iiga kaa soo tolnimo qaaday shalay. marka waad aragtaa labadan qaybood sida ereyga u duwayaan waa isla erey keliya. ereyga qaybtan iyo halkan ayay u guuri karaan ereyadaas, laakiin intan kale waa labadii qaybood aynu le ma guuraan. dhigmada waa habka afkan aanu hadda u jeedno ama sida aanu u dhigayno ay u qormayso. waynu ka hadli doonaa sharaxa dambe ee qaybta dhawaaqyada markaynu gallo. runtii waxay kala saaraysaa ereyadu inuu mid waliba keligii qormo oo aanu ereyna erey ku dhegin, hase ahaatee akhrisku uu isbedelo. laaciyaha markaanu nahno waa laacinta ereyga. laaciyuhu waxa weeye ereyga u soo horeeya ama ereyga halkan gala ayaa ka mudan ereyga halkan gala. marka aad hadlayso ereyadu saddexdan qaybood halka ay galaan ayay u kala mudan. marka hadduu halkan galo oo aanu naxw ahaan u gelin laakiin isagoo halkan geli karaa aad geliso, waxaa ka mudan halkanka aad geliso. haddaynu eegno shalay ayuu iiga kaa soo tolnimo qaaday lacagtii. kan waxaynu nidhi wuxuu xukumaa kan. waad kasii horeysiin kartaa oo lacagtii shalay ayuu iiga kaa soo tolnimo qaaday haddaad laacinayso ama aada u muujinayso. laakiin raaciyayaashu iyagu marnaba halkooda kama baxaan. waa saddexdii qaybta hore ee aynu li ma guuraan. hadalkii oo isla sidiiya ayaa haddana noqon kara siyaabo kala duwan. markaa shalay ayuu iiga kaa soo tolnimo qaaday lacagtii. lacagtii miyuu iiga kaa soo tolnimo qaaday shalay. shalay waxuu iiga kaa soo tolnimo qaaday lacagtii. lacagtii ma uusan iiga kaa soo tolnimo qaadin shalay. waxaad aragtaa intani inaanay marna bixin, kuwana aanay marna bixin, laakiin waxa warwareega ay noqdaan. marka laaciyuhu mid kastoo uu noqdo isma bedelo, hase ahaatee waxa bedelma kuwii aynu nidhi waxay galaan qaybahan ee iyagu 6 qaybood ee hadalka ka tirsanaa ee buuxinayay 3 weji. dhigmadoodu waxay noqonaysaa sidan iyagoo erey weliba uu ereyga kale ka madax bannaan yahay
ama qormadu ay ka madax bannaan tahay dhawaaqa. dhismaha weedha, gedgediga dhiska waa weedha iyo siday isu bedbedesho. marka hasha waxaa si xun u dhaawacay shalay libaaxii, si xun shalay waxaa hasha u dhaawacay libaaxii, shalay hasha waxaa si xun u dhaawacay libaaxii, libaaxii ayaa hasha si xun u dhaawacay shalay, shalay libaaxii ayaa si xun u dhaawacay hasha, libaaxii ayaa hasha u dhaawacay si xun. intani ma guurto, intana ma guurto, laakiin kuwa guurguuraya waa kuwan. waa isla weedhii iyo sida ay u qormayso oo ah qayba aynu hadhow ka hadli karno ee ah cilad bixinta dhawaaqyada. weer khaldan qormada maaha qoris ku habboon ereyada ay u taagan yihiin. waxaynu aragnaa inaynu nahno berri kugu sii sima hawsha. haddaad intaa tidhaahdo kugu ayaynu nahnaa. saddexda dhawaaq aad bay u kala duwan yihiin, laakiin isku sibaynu u qornaa. kugu sii sima. marka mid waa shaqal culus, mid waa shaqal fudud, midna waa shaqal hamso wata. marka waxaad aragtaa inay kala si u qormayaan. waa saddexdan ku aynu odhan karno ama kugu iyadana waxaynu arki karnaa waxaa hashii lala la'aa nirigtii. yani hashii baa la waayay, nirigtiina waa lala waayay. marka waxaa hashii lala la'aa nirigtii. marka la iyo la iyo la waa kala dhawaaq, laakiin isku sibaynu u qornaa. saa hatee sidan aanu hadda soo bandhigayno way kala qormayaan oo la iyo la iyo la. marka la waa kala qormo markaa saddexdani. waxaa jirta haddaba khaladka u weyn ee weedha aynu ku samayno afka soomaaliga markaynu ku hadlayno. khaladkaasi waa khalad cid waliba ay gasho, xataa dadka af soomaaliga aada u yaqaano. maan arag kolleyba dadka aada u waaweyn ama miyiga ka yimid ama dadkii hore ah oo adeegsanaya, laakiin waxaa sida badan ku dhawaaqa wariyayaasha ama dadka saxaafadda ama dadka aynu ka dhegaysano af soomaaliga oo ah had iyo jeer kuwa ugu badan ee khaladadan sameeya. haddaynu nidhaahno ama waxaad maqlaysaa macalinka ayaa wuxuu shalay soo booqday cusbitaalka, lagama yaabo inaad u aragta inay khalad tahay. ama macalinka ayaa shalay wuxuu soo booqday cusbitaalka, waxaa ku jira laba yeele ama sabjaga weedha ah. marka labadan shay ee sabjaga weedha ah noqonaya ama yeelaha weedha ama cidda falka geysanaysa ahi laba jeeraa la galay. kan waa isla weedhii oo kala rogan, laakiin laba jeeraynu nidhi. waxaa kasii daran laaciyaha ay iyo laaciyaha waxa inay labaduba ku wada jiraan. waxaad arkaysaa markaa inaanay weedhani saxba ahayn. waa laga yaabaa fahamka markaynu dhegaysanayno inaynu u qaadano sax, laakiin naxwi ahaan sax maaha, waana khalad. waana waxyaabaha afka duminayay ka mid yihiin ee aan weli la garan. waxaa laga yaabaa haddaynu kusii wadno in ay tani sax iska noqoto hadhow af soomaaligu lumo. haddaynu bal dib u eegno oynu kala saarno kuwan. macalinka ayaa shalay soo booqday cusbitaalka, waa weedh saxa, waa weedh hore u socota, waana weedh la garan karo.
macallinku wuxuu shalay soo booqday cusbitaalka. tan iyo tani way kala duwan yihiin markay weedha gelayaan. qofka weedha samaynayana way kala duwayaan, oo midna waa macallinku midna waa macallinka. marka waxaad arkaysaa inaanay isku weedh geli karin intanoo wada socota, waana khaladada u badan ee afkeenna ku jira. kuwan waa kuwii warwareegi jiray ama ereyadii socsocon jiray, kuwan waa qaybtii bidixda, kuwanna waa kuwa kala qaybta mididka ee weedha. waxaa jira haddaba xididada waxaanu dhaha ama xididka falka. haddaynu eegno falalku way isbedelaan. markay isbedelayaan qaarkood iyagoo fal cid ku socda ama adiga kugu socdaa, marka la raaciyo dheg ama dhawaaq shaqal, waxay keenayaan inay ka dhigaan mid cid kale ku socda. shaqalkan o iyo i iyo o iyo c iyo o waa 6 xidid. marka kan ama kan ama kan ama kan falka ku jiraa marka uu wareegayo uu fal kala noqonayo, kuwan mid ka mida buu qaataa. marka isla isagii haddaad raaciso wuu wareegi karaa, waxaanu tilmaamayaa fal kale oo jira. kar haddaad tidhaahdo waxa weeyaan kullow. haddaad i raaciso culus, kari ayuu ka dhigaya. waa falka adiga tooska kuugu socda ee aan ku dhaafayn. haddaad i ku darto waxa uu ka dhigaa fal cid kale aad ku falayso. markaa kar, kari. falka kar wuxuu noqon karaayoo kale marka aad shay tolanayso ama qayb jeexantay aad wax ku darayso. o haddaad ku darto wuxuu noqdaa waxaad adigu qabsanayso. marka kan labaad iyo afraad iyo lixaad waa qaar adiga kugu socda, laakiin o ayaa gasha. markaa karo waa shay markaad toltolanaysa adigu. kan oo kuwa adiga kugu socda ah oo kar ah, awood u yeelo. haddaad cid kale ku samaynayso isi ama ayaad raacinaysaa. qormadooda kolley sidan ah, laakiin aanu sharaxeeda hadhow bixin doono. markaa karsi. haddaynu eegno laac wuxuu noqdaa marka lagu leeyahay iftiin. marka adigu iftiin ama muuqo marka lagu dhahdo waxa weeyaan laac ama wuu laacayaa shaygaasi. waxaanu haddii i lagu daro wixii adiga kugu socda oo aad ka dhigto laaci, waa iftiimi ama muuji, waxaasoo dhan bay noqon kartaa. isla ereygii hadduu yahay laac, marka aad adigu laacayso matalan shaah, biyo, waxaas caano, lagu leeyahay laac waxaas. marka kar iyo laac labaduba oo waxaad samaynayso laakiin adiga ay si toosa kuugu socoto. marka cid baad ku samaysay kar, laakiin marka laysu eego ciddu ku socdo iyo adiga uu kaa socdo, adigu kugu dhowaadaa. laac caanaha ama biyaha lagu leeyahay laac, ujeedadu maaha, laakiin adigu kugu socdaa inaad wixii laacdo. marka ereyadu sida ay dareenka u bixinayaan ayuu afka soomaaligu kala dhigaa ereyada. marka laac marka lagu dhaa laacsi, cabsi weeye, oo markaad leedahay hore ha u dhammeeyo waa laacsi. laac waa tiigso. marka wixii adigu aad tiigsanayso ayaa laga hadlaya. marka falaalkani haddii aanay adiga aanad awood aanad taabanin aad ku geynayso way durki lahayn, laakiin
kuwani waxay ku xiran yihiin inaad awood aana taaban. markaa laaca marka lagu dhahdo waa jiigsa. adigu haddaad qof leedahay waxaad ka dhigtaa inuu jiigsado, wax kale ay noqonaysaa. laakiin adigoo aan qofkii gacanta qaban ama aan jiidin ma lacsiin kartid. marka iyadu ma gasho. marka 6 qaybood ayay ka kooban yihiin oo iyagu isu warwareega. diir haddaad tidhaahdo waa kululow, waxay la mid tahay kuwan waa diiri. diir markaad tidhaahdo waa qolofta ka rid ama fiiq, sida qofba u yaqaano. markaa diiro waa adigu samayso. kuwani markay guurayaan waa waxaad adigu samaysanayso. kuwani markay guurayaanna waa mid aad cid ku samaynayso. kani markuu guurayana waa mid aad cid ku samayso toosa. markaa sidaasay u kala duwan yihiin, kuwa ay qaataanna u kala duwan yihiin. yacni waa tusaale gaaban oo aan midi siinayno. aragtida xididka falka. falku markuu adiga kugu socdo laakiin ku dhaafi karo waa xididka koowaad, oo uu 2 object yeelan karo ama 2 cidoo uu ku socdo. adiga marka wixii lagu leeyahay samee, adigaana samaynaya, adigaana kugu socdaa, waana kusii dhaafi karaa. iminka dhal haddaynu nidhaahno, adigu dhalna way noqon kartaa, ilmo dhalna way noqon kartaa. marka hashi way dhashay iyo hashii nirig bay dhashay, labadiiba waynu nidhaahnaa, waana isaga tallaabi karaa. marka waa xididka koowaad, kan adigu kugu socon karaa bes. haddii uu cid ku samaysmayo waa inaad ku dartaa si uu u wareego. marka iminka kani markuu wareegayo oo dhal ahaa, oo haddii la raaciyo dhalo ayuu noqday, waa ka soo wareegaya. halkan markuu yimaado, haddii aad cid ku dhufanayso ama cid falka ku kaxaynayso, baad raacinaysaa. marka o'dakii aad raacisay waad ka jaraysaa, dhali ayay noqonaysaa. dheg, dhaji ama dhegi waa dhawaaqyada isbedele ee aynu ka hadli doono hadhow. dhur. marka kuwan oo dhammi waxay noqdeen qaar aad cid ku falayso. dhali, dhaji, dhur. haddaynu kan sii wadno, dhali, dhasho ama dhaliso waa siduu u qormaya, laakiin uu dhawaaq ahaan u noqonayo waa waxaynu hadhow ka hadli doono. ama dhalsii ama dhalsiiso. dhur, dhuro. dhan, dhansii. dhuub, dhuubo. markaa ma sii wareegi karo, ama yacni awood aan ahayn, xoogo u baahan yahay ma haysid. waa yacni adiga oo wixii taaban marka aad bedeli karto, eed awood ku bedeli karto, markaa ma jirtaa. dhimo. markaa qof ma dhimadsiin kartid, laakiin waad dili kartaa, yacni markaad wax ku dhufato. laakiin dhimo wax weeye adoon awood lagu adeegsan gacmeed ama miisaan ama culays ama faro. waa dhimo. markaad dhimadsiinayso waa adigoo aan taaban inaad wixii disho. markaa taasina ma iman karto. marka falalkani ma wareegi karaan, yacni halkooday ku dhammaadaan. haddaynu idhaahno falalka qaar, lidka falka, dhawaaqyadani waxay na siiyaan inay ereyada ama falalka qaar ka dhigaan lid. haddaynu idhaahno dhac, boob, dhici baynu odhanaynaa. marka la raaciyo waa soo celi, wixii boobay ka soo celi. gad waa iibi, gado waa adigu soo iibso. bug, bugso. markaa waxaad aragtaa inay dhawaaqyadani keenaan inay falka ka dhigaan fal lidku ah kii hore. dhawaaqyadani waxay magacyada mararka qaar ka dhigaan fal. iminka fool haddaad tidaa, foolo. raad, raadi waa iibaa raacinaysaa. been, beeni. hiil, hiili. dhaan, dhaami.
wad aragtaa marka inay adeeg kaloo badan oo aadan leeyihiin. alfabeetkani waa kaynu isticmaalaynay ee afkeena aynu u haysanay oo kulliga waa khalad. alfabeet ahaan lama odhan karo, laakiin waa dhawaqyada afka aynu ugu yeedhno. alfabeet maadaama uu afafku iska leeyihiin, gaar ahaan laatiinku tan, cid kastoo laatiinka adeegsataana ay sidoodan isu daba dhigto, ayna u taagan yihiin dhawaaqyada oo ay yihiin sumado aan iyagu dhawaaqahayn, waxaanu jeclaanay inaanu cilmi baadhistan ku samayno inaanu adeegsano kuwan. waxaynu kaga baxaynaa qaybtii koowaad ee sixidda dhigmada iyo naxwaha af Soomaaliga. mahadsanid.